Soomaaliya oo ciidamo kala dhex dhigtay maleeshiyaadka walaalaha ay ku dagaalamay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose sida qodobkaas ay ku dhameystirayso wariyaha Sooda Sagal. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ciidamo militari ah waxay kala dhex dhigtay laba maleeshiya beeleed oo maalmahan ku dagaalamay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose. dagaalkaani uu geystay dhimasho iyo dhaawac ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay qaar ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada Walaweyn iyadoo si kala gooni ah ay ugu dhaceen dagaalo. taliyaha amniga ciidamada danab oo la hadlay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee labada beelood ayaa u sheegay in loo baahan yahay in dadka Walaweyn ay ku wada noolaadaan nabad. waxa uu sheegay in dowladda ay u soo dirtay inay kala dhaxgalaan maleeshiyaadkan dagaalamay. waxa uu sheegay in marnaba aysan ogolaan doonin in dad loo geysto dil arxan darro ah. dagaaladii ka dhacay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa dhaliyay in qofna la dilo kuwana la gowraca kadibna meedkooda dab la qabadsiiyay taasoo ay dad badan ay ka caroodeen. Sooda Cabdiqaadir Axmed, Sooda Sagal, Radio Wadani TV.